cabdisalaan xaaji faarax oo ka mid ah shaqaalaha banka degmada Saylac oo maanta la hadlay saxaafadda madaxa banaan ee ka howlgasha degmada Saylac. cabdisalaan xaaji faarax ayaa waxa uu shirkiisan jiray maanta kaga hadlayay ceebo iyo fadeexad maalmihii ugu dambeysay loo mariyay saxaafadda madaxa banaan. dad uu sheegay in ay ka shaqeeyaan ceebaha bini'aadamka isla markaasina ay doonayaan inay ku fadeexadayaan. shirkiisan jiray ku cadeeyay inuu eeba ka bariyeelay ceebaha iyo fadeexadaasi maalmihii ugu dambeysay saxaafadda madaxa banaan loo mariyay. isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri saxaafadda maanta anigoo cabdisalaan xaaji faarax shaqaalaha banka Saylac waxaan saxaafadda u soo fadhiistay dad wax matashiila oo dad xaray wax saxaafadda ii mariyay hadalla aanay qaban oo falxun ii mariyay ayaan ka jawaabayaa oo leeyahay waxaas wax alla wax ka jira haba yaraatee ma jirto. kolka anigu waxa la sheegaya ee hadallada la mariyay anigu ma qabo mana xaray ma qabo. waxaan cadeynayaa in arrinkaasi waxba ka jirin dadkaasna dad waxay warmatashiil ay yihiin oo xumaan iyo aniga ila badheedheen wax kale oo aan qabaa amba dhib kale oo amba xumaanka amba ay waxa sheegayaan oo jira haba yaraatee ma jirto. waxaan cadeynayaa inaan alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkaana waxa ay sameeyeen iyaga ku talawaayo qofka xalay kula mid ah inaad cabaarayso amba aad waxaan u hayn ka samayso waa foolxum waa yara foolxum. kolka waxaan cadeynayaa inaan waxaasi haba yaraatee wax ka jira aanay jirin. waxaa sheegayay waxaa sheegayna waa kuwa xumaan un ka shaqeeyo dadka un xumaan iyo wax aan jirin ka sheega markasta. kolka waxaan beeninayaa oo cadeynayaa inaan waxaasi maanta la igu sheegayo waxaa la sheegaya in haba yaraatee aanay jirin ayaan halka ka cadeynaya maanta saxaafadda soo fadhiistay. waxa ay sheegayaan xumartashiilku haddii aan anigu qabo waa la iga arki lahaa oo waa la arki lahaa mana qabo. waxa ay sheegayaan iyaga ayuu warmatashiil waayo qof caytamayo iska hadlay wax walba ku hadli karo qofku caytamayo. marka waxaan cadeynayaa inaan waxaas waxba ka jirin oo iga muuqan lahaa. alxamdulillaah rabbil caalamiin iyagana ilaahay ayaan ka jazaaysiinayo waayo been bay iga sheegeen beenta iga sheegeen iyo xumaanta iga sheegeen xalay ilaahay xaq ilaahay bay ka heli doonaa biidnillaahi kariim. وعلي أحمد يري صحافة مضح بنان دقمة Saylac.